السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وادي سلامي ملك السواء جوكتان كسر وادا جنلك نولشا برامجكيسا حين دابك نولشا إن شاء الله برامجك حين دابك نولشا مانتا وحين كسو قادن دونا موضوع آد مهم وآن فيلايو إن آدي كفايدي سندونتان balse ugu horeyn inta aynan mawduuceena u gudbin haddii aad nagu cusub tahay fadlan janalka nolosha subscribe saar mar kale kusoo dhawaada mawduuca maanta waxaan doonayaa bal inaan dib u xisaabino waqtigii naga tegay sidii uu nagu dhaafay ama aynu ku luminay una qorsheyno waqtigeena soo socda ugu horeynse waxa ay isweydiintu tahay waa maxay waqti su-aashan qeexid badan uma baahna waqtigu waa adiga iyo noloshaada sida wadnahaagu u garaacayo ilbiriqsi kasta ayuu waqtigaaguna u socdaa diinteenu maxay ka tiri waqtiga ilaahay wuxuu kaga hadlay aayado badan oo qur-aanka kariimka isagoo ina tusaya muhiimadda waqtigu uu leeyahay isagoo ku dhaaranaya aayado badan oo ku jira qur-aanka nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu inoo sheegay in 4 qodob maalinta qiyaame la isweydiin doono 2 ka mid ah su'aalahaasi waxa ay noqon doonaan cimrigaaga iyo dhalinyaronimadaadii wixii aad ku samaysay waxayna la xiriiraan waqtiga qiimaha waqtiga uu leeyahay adduunyada dal walba sibuu u cabiraa waqtiga dad badan waxay ku qiimeeyaan waqtiga lacag ama dahab oo ah shay qaali ah bal ka soo qaad inay subax kasta bangigaaga ku soo dhacdo lacag cadadkeedu gaarayo 86,400 dollar hami intee la eg baa ku geli lahaa qorshe intee la eg baa dejin lahayd ma laga yaabaa adoon ka faa'iideysan inuu gabalku ku dhaco oo ay saa kugu dhaafto adoon shilin ka isticmaalin taas waa maya haddaba waxaad haysataa 24 saacadood oo u dhiganta 86,400 oo sekan ama ilbiriqsi oo aan u soo qaadanay 86,400 dollar haddaad hal sekan dayacdina waxaad iska dayacday $1 weliba wuxuu kaga daran yahay lacagta hal shay oo ah halkii daqiiqo oo ku dhaafa ma ahan mid soo noqonayo waqtiguna waa sida seefta oo kale maareynta waqtiga maadaama waqtigu uu sidaas qaali u yahay waa inaynu sameynaa qorshe iyo maamulid waqtigaasi aynu kaga faa'iideysan karno dadku waxa ay guul ku kala gaaraan sida ay waqtigooda uga faa'iideystaan waxaan haysanaa dhammaanteen waqti isku mid ah waxa la isku dhaafay oo kaliya sida qof walba uu u qorsheysto waqtigiisa waxaad samaysataa liis aad ku qorto qorshe maalmeedkaaga bileedkaaga sanadeedkaaga si uusan kaaga lubin hal second iskuna ilaali liiska aad qoratay liiskan wuxuu kuu fududeynayaa inaad kala horreysiisid howlahaaga shaqo ku dhaqanka liiska way adag tahay haddaba si uu kugu fududaado ku darso waqtiga aad naftaada u raaxaynayso oo aad samaysid waxyaabaha aad jeceshahay waqti lumiska waxaa waqtiga lumiya hawsha oo aad dib u dhigatid telefoonka oo aad waqti badan ku hadashid internetka oo aad u isticmaasho sida facebooka whatsappka iyo wixii la mid ah filimada musalsalka qaadka iyo hamil la'aanta qofka oo aan hiigsi iyo hadafba lahayn noqdana qof iska nool gunta iyo gabagabada mawduuceena waxay ku biyashoonaysaa insha Allah inaad ka faa'iideysatid waqtigaaga si aad u gaadhid meelaha aad hiigsanaysid if iyo aakhiraba intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa mawduuca maanta ana xubintii hayndaabka nolosha dabcan barnaamijkan haddii uu ku xiise geliyey like saar sidoo kalena ha hilmaamin haddii aad nagu cusub tahay inaad channelka subscribe saarto waadna ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka channelka nolosha